maxay ahayd dowladaha soo koraya inay burburiyaan in maxay ahaydeen ay xabsiyo jirdila u samaystaan ee la yiraahdo rendition ay ku yaala dalka Djibouti maxay ahaydeen inay markasta burburka iyo wadamada soo korkoray ay ku heshiyaan Mareykanka iyo dowladaha galbeedka marka maxay ahaydeen soo dhawaada maanta waxyaalo badan baa idin la qaybsanayaa ICJ sida loo soo abaabulay iyo meeshii laga keenay iyo sida loo soo sameeyay iyo meeshii maxay sida maxay ahaydeen ay ku timid ICJ ayaan idin la qaybsanayaa andan waxaan idin la qaybsanayaa badeeni iyo raggii dhiibay ee maanta feesteenahaya badii Soomaaliya ku feesteenahaya maxay ahaydeen waa bixinay Kenya siinay dhulkeygii baan maxkamad geeyay maxay ahaydeen waan ku faraxsanahay boqolkiiba 25 laba ceel oo gaas shiidaalna waa loo jaray oo very important ah marka yaan idin la qaybsanayaa iyo ragga tuugada ah oo raba haddana dalkeena isku soo sharaxaan inay dalkii hooyo haddana sii iibsadaan isii raaciyaan iyo waxaan idin la qaybsanayaa Maxamed Farmaajo dalkii inuu ceel ka riday hadduu soo noqdona dalka inuu sii raacinayo tuugada dalka dhiibtay ee xeebteeni badeeni ee batroolkeeni khayraadkeeni shacbiyadeeni ka baahan yihiin Kenya farta ka saaray ee Uhuru farta ka saaray ee ku faraxsan dalka Soomaaliya ma hogaamin karaan dalka Soomaaliyana meel wanaagsan kuma hadeen karaan mana madaxweynena kama noqon karaan dalkana ma hogaamin karaan because waxa weeye nin dalkaagii iyo badiisii iyo khayraadkiisii dhiibay waxa weeye birina hadduu kursi ku soo fuulo dalka Soomaaliya oo dhan buu iibinayaa Soomaali shacabkeedii oo dhan buu iibsanayaa marka meel cidlu istaajinayaa marka taasna in laga tigtoonaado weeye taana in laga taxadaro weeye taana Soomaalina ka foojignaato weeye taana badiini 125 Kenya loo gooyayna waa inaad ka banaan baxdaan inaad ku banaan baxdaan maahan inaad habbi ku tihiin waa inaad diidaan waa in badiina gurigiina idinkaas kale khayraadkiina idinkaas kale badiina idinkaas kale xadka badda Soomaaliya ee loo jaray 25 labada batrool ee gaaska iyo oilka loo jaray waa labadii midna Xasan Sheekh iyo Khayre ay iibsadeen ee Somo Oil ah midna waa midii asaga uu iibsaday waaye uu shirkadihii keensaday weeye ninka la leeyahay Uhuru beesha caalamka UN-ka Security Council-ka kulli waa la wada ogyahay asagoo Security Council ah ayuu nabadgelyadii Soomaali maxay ahayd uu badeedii loogu saxiixay asoo Security Council ah inuu badii Soomaaliya boobo oo tuuga Soomaaliyeed ay u saxiixaan idinkana isaga kiindhigaan niman wadaniyiina taasaan maanta idin la qaybsanayaa iyo ICJ maxkamadda u xukuntay ee sharci darrada ugu xukuntay ee badeeni khayraadkeeni nooga boobtay ee afka u gelisay ee sharci darrada sameysay ee naloogu heshiiyey in badeeni 125 la siiyo meeshii asalkeedii iyo abaabulkeedii iyo sida loo soo maxaytan maxkamadan meeshay ka timid iyo sida loo soo abaabulay ayaa idin la qaybsanayaa soo dhawaada Soomaaliyeed soo dhawaada waxa weeye annaga maanta waxaan inaan isugu duubano waa shacbiyadeena Soomaaliyeed shacbiyadan u hadlahaya tuugada dalka iibsatay waa qaa'im wadan weeye shacbiyada Soomaali baan la hadlahayaa waa in ay sharing gareeyaan waa in ay maqlaan shacbiyada Soomaaliyeed luqadeedan ku hadlahaya ana idin hadlahaya waa in ay sharing gareysaan waa in ay maqashaan shacbiyadii Soomaaliyeed inay ka baahan tahay Uhuru iyo Kenyatina khayraadkan in afka loo galiyay ragii iibiyay ama saxiixayna ay ku baadhiyeynahayaan maxkamadda xaq bay sameysay ha walaalaheen weeye Kenya waa dariskeena Kenya badda anagu ma lahayn ma gartay badda anaga ma lahayn ma gartay baddaan muran baa ku jiray bad Soomaali iska lahayd ma ahayn maxkamadda ku geeyay ee muran gurigoodii geliyay ayaan isla qaybsanaynaa no qabiil inaa ku difaacdaan nin jeclaysiina ku difaacdaan badda Soomaaliya khayraadka Soomaali baa iskale not Kenya no another country inay leedahay Kenya ma leh Kenyatina ma leh Uhuruna ma leh نقرت خيامة كسعودان إدين شيء جماعة تدل قيبسني هاي سودا وهذا وحين إدين إيبه هيا ونقيسين هيا
Wellesley Clark oo ahaa ninkii 1991kii ahaa taliyihii ugu sarreeyay ee NATO. dhagaysta dhibaatada ay dalka Soomaaliya u geysteen dowladaha islaamka u geysteen. dhagaysta Mareykan dhagaysta. What happened in 9/11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement, we didn't have American understanding of it, and we had instead a policy coup in this country. A coup. A policy coup. Some hard-nosed people took over the direction of American policy, and they never bothered to inform the rest of us. I went through the Pentagon 10 days after 9/11. I couldn't stay away from Mother Army. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. All this is in the book. And I said, am I doing okay on CNN? He said, yeah, fine. He said, I'm thinking about it. He says, I read your book. And he said, this is a book that talks about the Kosovo campaign. And he said, I just want to tell you, he said, nobody's going to tell us where or when we can bomb. Nobody. He said, I'm thinking of calling this a floating coalition. What do you think about that? I said, well, sir, thanks for reading my book. And, he said, thanks, that's all the time I've got. Really? And I went downstairs. I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. He said, I said, well, did they tie Saddam to 9/11? He said, no. He said, but I guess they don't know what to do about terrorism. They can attack states, and they want to look strong. And so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And, you know, it's like that old saying, he said, if the only tool you have is a hammer, then every problem has to be a nail. Well, I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about 6 weeks later. I saw the same officer. I said, why haven't we attacked Iraq? We still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He said, he pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office that says we're going to attack and destroy the governments in 7 countries in 5 years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. I said, 7 countries in 5 years. I said, is that a classified memo? He said, yes, sir. I said, well, don't show it to me. He was about to show it to me. He said, because I want to talk about it. And I sat on this information for a long time, for about 6 or 8 months. I was so stunned by this, I couldn't begin to talk about it. And I couldn't believe it would really be true, but that's actually what happened. These people took control of the policy in the United States. And I realized then, it came back to me, a 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001, he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991, he was the Undersecretary of Defense for Policy. It's the number 3 position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a 1-star general. I was commanding the National Training Center. I had met him one time. He said, if you ever get to Washington, come look me up. They always say that. Well, I was there in Washington. It was a Friday afternoon. I'd visited Colin Powell. He'd given me 5 minutes of his precious time and sent me on my way, and I was bored in the Pentagon, and I thought, I'll just go, who can I see? I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there, he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time, and he brought me in, and I said to Paul, I said, and this is 1991, I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in Desert Storm. He said, well, yeah, he said, but not really. He said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. He said, and we've got about 5 or 10 years to clean up those old Soviet client regimes. Syria, Iran, Iraq, before the next great superpower comes on to challenge us. And it was like, you know, I'm coming out of the Mojave Desert,
I've been training troops. I haven't been thinking geostrategy for some time. And suddenly a guy just sort of shoves this nugget at you. Well, you remember it. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And my mind was spinning. And I put that aside. It was like a nugget that you hold on to. This country was taken over by a group of people with a policy coup. Wolfowitz and Cheney and Rumsfeld, and you could name a half dozen other collaborators from the Project for a New American Century. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. And that's why we're failing in Iraq. Because Iran and Syria know about the plan. All you have to do is read the Weekly Standard and listen to Bill Kristol, and he blabbermouths it all over the world. Richard Pearl the same way. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. It was like a laydown. Oh, our legions are going to go in there. This wasn't what the American people voted George Bush into office. Well, they didn't actually vote him into office, but it wasn't what many of the people it wasn't what he campaigned on. He campaigned on a humble foreign policy, the most arrogant foreign policy in American history. He campaigned on no peacekeeping, no nation building, and here he is with Afghanistan and Iraq. It's astonishing. So the root of the problem is not how many troops are in Iraq. Please believe me. Don't be mad, if you're a Democrat, at your Democratic congressman because they can't reduce the troops and frustrate the president. That's not the issue. And if you're a Republican, don't be mad at the Democrats because they're fussing with the troops. Whether you're a Democrat or a Republican, if you're an American, you ought to be concerned about the strategy of the United States in this region. What is our aim? What is our purpose? Why are we there? Why are Americans dying in this region? That is the issue. wuxuu yahay soo dhawow cabdullaahi dheere soo dhawow walaalkay baa tahay dheere cabdullaahi soo dhawow walaalo soo dhawaada sheerin gareeya ninkan waxa weeye 1991kii maraykan waaye wuxuu haystay ciidanka nato haystay magaciisana waxa la yiraahdaa Wesley Clark baa la yiraahdaa arrintan uu ka hadlayo waxa weeye ninkii maxay tahay gaashaandhig haysta 1991kii maraykanka ninkii ku xigay oo magaciisa la yiraahdo Master Paul Wolfowitz ayaa wuxuu ku yiri haddaan annaga maraykan nahay quwadii adduunka weynaa aan nahay waxaan go'aan ku gaarnay maxay ahayd 7 wadan oo muslim ah inaan burburino within maxay ahayd 10 sano ilaa 5 sano dhexdeeda intuusan dawladda Russia ay ka soo noolaanin ama quwadeedii soo noqonin ayaan ka gaarsiinaynaa 7 wadan oo islaam ah marka miinis waxa weeye 7 islaamka ah ay lagu duuliyay la burburinayay waa dawlado waa wadamo dawlad ka jirtay ee madax bannaan ee khayraad lahaa in khayraadkoodii la boobo oo maxay ahayd nolol loo diido oo maxay tabta annaga maanta haysata Kenya looga xoogayo in batroolkeeni iyo badeeni maxkamadii aan caadilka u tagnay ee ICJ ahayd ee la dhahaayay maxay tahay maxkamad adduunka caadil weeye xaq bay u xukuntaa waxay maanta annaga ay xaq darro noogu samaysay ama dhulboob ay nagu samaysay ama ay maxay tahay si xaq ah oo maxay ahayd maxkamadaha kaleeto aysan maxay ahayd ku xukumin ay nooga xukumtay ay nooga hiilisay dhulkeeni annaga aan lahayn badeen aan lahayn oo laba shidaal iyo maxay tahay oil iyo gas ku jireen oo shidaal ah oo maxay ahayd ugu waaweynaa 25% loo saxiixay in Kenya
kenyaatiga iyo uhuri dadkiisa baahan inay milyaneer gaajada uga baxaan oy ku qaboobaan oy ku taajiraan annaga shacbiyadeennii soomaaliyeed ilmihii soomaaliyeed hooyooyinkii soomaaliyeed shacabkii soomaaliyeed ay baahan yihiin tuugo soomaaliyeed oo odayaal wiilal niman soomaaliyeed ee caado qaataa ee maxay taheen ay soo xusheen UN-ka iyo international community-ka ay kursiga noo keeneen dhulkoodii beeciyeen ay balaq ka qaateen ay dhulkii iyo baddii ay lahaayeenna ay muran nooga geliyeen marka taa weeye ishuuga maxay ahayteen wadamada islaamka loo burburinayo ka hadlayo Wellesley Clark toddobadaa wadanna waxa weeye maxay ahayteen Yemen iyo Iraq iyo waxa weeye Syria iyo Sudan iyo waxa weeye Soomaaliya iyo waxa weeye maxay taheen Yemen iyo Iran may garateen waa toddobadaa wadan Iran baa ka hartay intii kale waa la burburiyay intii kaleeto waa laga soo laacay may garatay Soomaaliya wada aragtaa 30 sano ayaan xanibanahay oo nala haystaa oo nala dul fadhiya oo UN haysataa may garatay dal la haysto oo UN haysatana waxaaraan maqdaca in hantidoodii iyo khayraadkoodii iyo diintoodii iyo shakhsiyadoodii iyo dalkoodii meel looga dhaco ama la boobo ama diintooda wax looga maxay tahay lagu sameeyo ama gabdhahoodii la kufsado ama shakhsiyadooda wax loo dhimo ama dalkoodii la boobo ama hantidoodii la boobo ama khayraadkoodii la boobo ama dadka la dilo may fahamtay laayo waa mamnuuc sharciga UN-ka u yaala ay samaysteen waay UN-ka waxa waay Security Council-ka waay Security Council-ka UN-ka waxa waay shanta waxa weeye oo maxay tahay permanent-ka ah oo waligood dhicin weey waa Mareykanka waa China waa Russia waa Ingiriis waa Faransiis waa shantaas waay Security Council on permanent-ka ah waay may garatay permanent-ka on dhicin waligood may garatay oo taagan waay marka sharciga UN-ka waa la baal maray 10 jeerna waa dhahay waa la baar baray sharci lagu hayo dawladda wadan lagu hayo chapter 7 ama occupation in hantidoodii la boobo oo maxkamad la geysto oo niman tuuga ah waxay ku heshiyeen oo balaq loo tuuray oo maxamed farmaajo kow ka yahay oo ayna Cabdirashiid laba ka yahay Umar Cabdirashiid afqallo hal weyste ninka saxiixay aabahay baa saxiixay NFD Kenyoy hantidii ya Puntland barwaaqadeed iyo Puntland iyo aniga inaan hanti yeestaan rabaay aabahay baa NFD saxiixay aniguna waxaan ku saxiixayaa oyalkii petrolkii baan ku saxiixayaa Kismaayo iyo Jubbaland kugu siinayaa hal weyste waxa weeye jawaabta ada waa ku siinayaa ma istaahishi dalka Soomaaliya wax ka qabata adiga Sheekh Shariif iyo tuuga doqonkood dheerka in Cabdi Shakuur ina mako ma gart iyo Xasan Xoolo ma gart iyo islaamta geysay ku faanayso anaa badda geeyay anaa Mareykanka ka soo qaatay anaa keenay ee Soomaaliland ka soo jeedo ee soo shaqo tagtay Sacuudiga u soo shaqo tagtay ilaa xamar waa Sacuudiga shaqadii loo soo shaqo tagay Soomaaliland wixii ka yimaado waxay u soo shaqo tagaan magaalada Muqdisho ma gartay waxa weeye iyo maxamed farmaajo iyo tuugada kala ku xiran ma garatay dalka ma istaahilaan dalka in loo dhiibo inay shacabka hogaamiyaan ama dalka lagu aamino ma istaahilaan waa wada tuugo dalkii iibsaday ma garatay marka waxa weeye anu xaqan ka hadla runtaana ka hadla ninna u meexdo ahi hal weyste iyo aabihii dalka eel bay ku rideen NFD iyo Arusha waxa bixiyay hal weyste aabihii Cabdirashiid Cali Sharma ka bixiyay may garatay gumaysiga Ingiriiska nooga xoogay Ingiriiska sanka nooga duray inaan bixino maxay tahay NFD Arusha Soomaali baa iska leh maantana waxay ku darsadeen badeeni 125 inuu wiilkiisa u saxiixo markaasuu hadlahayaa oo la wareysanayaa oo siyaasad laga wareysanayaa oo si soo sharaxaya oo maxay hayta wali isla quman yahay oo wali soo qoraya qalbi dhagax baa la qabtay qalbi dhagax baa la afduubay afkiisa furan yahay xal weyste jawaabtaada waa ku siinayaa maalin kasta waa ku soo galaya futada xaarka iska dhaqin ma aragtay ayaan ku sheegaya xaarka inuu ka daayo tambooni wadati waa sidaan isku daba galnay waa allaale wixii dalka iga iibsaday ee maanta dhiiqadaan geliyay ee maanta ku faraxsan ee shacbiyadii Soomaaliyeed beenta yiri ku dabaaldega calanka saa u ruuxa
dhulkaygii la qaatay gaaskaygii la qaatay oyalkaygii la qaatay batroolkaygii kenya la siiyey kenyaati la siiyey ma garatay asagoo ah security council ku jira ayuu wuxuu yiri maxkamadda ma tagahayo ma garatay maxay ahayteen halaha la siiyeyna iguma filna ma garatay badana ana iskale asoo security council ku jiro in Africa yahay security council president security council way in Africa loo dhiibay ma garatay waxaan ku sheegaa inay tuugan yihiin UN-ka Mareykanka iyo dawladaha galbeedka horaan ay ugu sheegay Afrikaanku waa rinti secret lagu shaqaysto wadamada masaakiimiinta ay gacanta ku hayaan inay u boobaan ay dhahan go ahead gadaal baan ka taaganahay bob annagana shirkadihii baan keensanaynaa annagana waxa weeye waa shaqaysanaynaa waa boobaynaa ayagana waa noo ogolaadeen annaga ma yeelayno dal occupation ku jiro chapter 7 maxkamadda ICJ kama yeelayno wax ka jira mala xukunkay samayso ma garad dhagaysta Hillary Clinton madaxweynihii Clinton xaaskiisa oo sheegaysa inay argagixisada iyo Talibanka iyo al-shabaabka Mareykan aabi hooyo dhahaysay iga abuureen dhagaysta wasiirkii hore arrimaha dibadda dalka Mareykanka Hillary Clinton ayaa la weydiiyey Mareykanka miyaa sameeyay ama maalgeliyay ururka al-Qaacida Hillary Clinton oo su'aashaas ka jawaabaysa waxa ay qirtay in dawladda Mareykanku iyo wakaaladda sirdoonka Mareykanku ay abuureen isla markaana maalgeliyeen al-Qaacida si ay ugula dagaalamaan midowgii Sovieti iyadoo arrintaasi ka jawaabaysana waxay tiri sidan I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet. aynu xasuusano dadka aan maanta la dagaalamayno al-Qaacida waxaynu maalgelinay oo aynu samaynay 20 sano ka hor waxaynu u abuurnay al-Qaacida sababtoo ah waxaan halgan iyo dagaal dheer kula jiray Ruushka midowgii Sovieti waxay ku duuleen xilligaas Afghanistan Mareykankuna ma doonayn inuu arko midowgii Sovieti oo xukumaya bartamaha Aasiya si aan arrintaas uga hortagno waxaan qabanay shaqo adag madaxweynihii Mareykanka xilligaas Ronald Reagan ayaa hawsha la kaashaday golaha Koongareeska oo ay xilligaas hogaaminayeen dimuqraadigu waxaana uu yiri arrintu waxay u egtahay fikradaad wanaagsan aynu la macaamilo oo aan kaashano ISI hay'adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan oo aynu halkaas ka qorano mujaahidiin kuwaas oo ka imanaya Saudi Arabia iyo dalal kale kuwaas oo soo xambaari doona soo waaridi doona fikradda wahabiyada islaamka si aan ugula waxaan wadaynaa ilaa inta aan ka adkaanayno midowga Sovieti bal qiyaasa waxa dhacay markaan hawshii fulinay Sovietki waxay sameeyeen dib u gurasho mujaahidiintii ayaa ka adkaaday midowgii Sovieti kadibna midowgii Sovieti way isaga baxeen Afghanistan sababtoo ah Sovietku waxay dagaalka ku khasaareen balaayiin dollar taasina waxay horseeday burburkii iyo dhicitaankii midowgii Sovieti waxa jira dood adag oo oranaysa in Mareykanku uu sameeyay al-Qaacida Taliban ma ahayn maalgashi xun marka laga hadlayo inaan u adeegsanay inaan ku dumino midowgii Sovieti laakiin aan ka taxadarno waxa aan beernay sababtoo ah waxaan beeray ayaan goosan doonaa al-Qaacida oo ah wixii aynu inagu beernay waxaan uga soo tagnay Pakistan waxaanuna Pakistan si dadban ugu niri idinku sidaa doontaan ka yeela ama la macaamila mujaahidiinta aan abuuray la macaamila bambooyinka daadsan xuduudihiina taasoo ka dhigan annaga ka Mareykan ahaan waxba nagama gelin shuqulna kuma lihin waxbana idinkala qaban mayno wixii aan beeray iyo wixii natiijo oo ka soo baxa xaqiiq ahaan dhibaato badan ayaa Mareykanka hadda ka haysata al-Qaacida iyo Taliban sababtu waa inaan joojinay la macaamilkii iyo iskaashigii aan la lahayn ISI hay'adda sirdoonka Pakistan iyo militariga Pakistan wixii aan abuuray hadda Mareykanku dhib weyn ayuu kala kulmay inaga ka Mareykan ahaan waxaan haysata kalsooni la'aan weyn
To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, sida runta Mareykanku isaga ayaa abuuray mushkiladan argagixisada ee aan maanta la dagaalamayno sidee sababtoo ah markii midowgii Sovieti uu gumaysanayay Afghanistan ayaanu keenay fikradan caqliga ku dhisnayd taasoo ahayd inaan tagno Pakistan oo aan dhisno quwad mujaahidiina oo aan ku hubayno sawaariikhda Stringaris iyo wax kastoo kale si ay mujaahidiintaasi u galaan Afghanistan oo ay halkaas uga dagaalamaan midowgii Sovieti arrintaasna waan ku guulaysanay midowgii Sovietna way isaga baxeen Afghanistan annaguna waxaan dhahnay macal salaama sababtoo ah Mareykanku wuu gaaray ujeedkiisii laakiinse dadkii aan tababarnay ee xag jirka ahaa waxaan uga soo tagnay Pakistan iyo Afghanistan waxaan ka soo tagnay iyagoo aad u hubaysan waliba hub annagu aan siinay waqtigaas ma ogin ma qiyaasi karayn kama aanu fakirin inay samaynayaan foodada iyo qaska ay hadda dunida ka wadaan sababtoo ah markaas waan fanaxsanayn oo waxaan ka takhalusnay midowgii Sovieti kadib dhicitaankii midowgii Sovieti waxaan maleynaynay wax walba inay si fiican ku dhamaadeen waxay u sameeyeen inay midow Sovieti Russia inay kula dagaalamaan Taliban iyo Al-Qaa'ida Afghanistan iyo Pakistan marqaatigeeduna waa kana ayaga sameeyay waxayna u sameysteen dalalka islaamka ah inay isku baabi'iyaan oo dhigooda maalin kasta qubto dhibaatadii ay markaas sameeyeen ama ay abuureen Talibanka argagixisada ay abuureen waa kan hadda ilaa hadda magaalada Muqdisho Soomaaliya dhigeeda qubanaysa aysan shaqo ku lahayn aysan kala jecleen oo aad tahay xayawaan meel cilla ku dhintay waa falkii ay sameeyay dalka Mareykanka ayaga aabi hooyo leedahay waxayna u sameysteen arrintan dalalka muslimiinta ah in lagu abuuro oo danaha ma garateen danaha rabaan kaga fushanayaan ay ayaga biisi isaga dhigahayaan si ay khayraadkooda u daldashaan si ay ugu iib geystaan khayraadkooda iyo macdantooda iyo batroolkooda iyo gaaskooda ay ayaga isku laayaan sida hadda dagaalada askarta isku laynayso oo halka beeloodo oo beesha hawiya oo maalin kasta ninka magacay la wadaag ay waqtigiisa dhamaaday filada dhex fadhiyo oo nidin sheegay inuu dastuur maxay meesha u fadhiyo maxay hayteen u fadhiyo inuu dalka xaraasho intii ugu dambeysay inuu xaraasho may garatay taa weeye waxa weeye markii la soo tababaro wiilashii Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ka soo degaan argagixisa la dagaalamaya yiri argagixisadaas yaa lacag siiya yaa hub siiya yaa qaraxyada siiya yaa nolosha siiya xagay ka keenaan hubkay dadku laynayaan qaraxyada dadku qarxinayaan dhibaatada ay u geysanayaan yaa siiya yaa quudiya taas baa idin cad Mareykan inuu aasay ayagana inay ka dambeeyaan dawladaha galbeedka iyo UN-ka inay ka dambeeyaan kuwa xalana fadhiya in Soomaali la isku baabiyo dalalka islaamka lagu abuuro ay ayagu isxasuuqaan oo iyagu dhigooda iska qubaan waa waxaas ay u abuurteen Taliban iyo Afghanistan wataasa sheegaysa Hillary Clinton warka waa cadi soo dhawaada Soomaaliya ay soo dhawaada meegart soo dhawaada waxaan rabaa maanta inaan idin sheego ICJ maxkamadda la yiraahdo ee Hague laga furtay ee UN-ka maxay ahayd sameysteen ee loogu talagalay dawladaha yaryar ee isboobahaya meesha ku soo calaacali lahaayeen maxkamaday u kala khasaaro qaybin lahayd ay ugu furteen dawladaha yaryar oo iyaga isbooba si loogu dhexdhexaadiyo ayaa loo furtay waxaana furtay UN Security ayaa furtay UN Security Council ayaa furtay dhageysta sababta lagu furaan idin sheegaya meesha ka soo askuntaan idin sheegaya qaybi ICJ maxkamad u furan xaq u furan maxkamad jirta maaha annaga ma believe garaysni waa diidanahay reject baan ku nahay
soomaali haddaana waana idinla qaybsanayaa sababta loo furay sababta loo furtay inta waddan oo ku shirkoobay ICJ-daas ay u furteen iyo sida loo soo abaabulay iyo maxaa xakimiintan jooga sida loo keenay ayaa idinla qaybsanayaa marka dhagaysta kow ICJ waxaa la dhisay dagaalkii koowaad ayaa la dhisay kadib dagaalkii koowaad baa la dhisay kadib waxaa loo dhisay organization oo loo yaqaanay markaas League of Nations oo markaas uu magaceeda ahaa League of Nations waa dagaalkii koowaad ka bacdi baa la sameeyey dhagaysta ma garatay waxayna ahayd organization ayaa loo yaqaanay League of Nations ayaa la oran jiray magaceeda ICJ markaas dhagaysta waxaana ka dambeeyey ama maxay hayteen oo ka dambeeyey oo maamulayay markaas League of Nations waxaa markaa maamulahayay gumaystayaashii reer Yurub ayaa samaystay ka bacdi dagaalkii labaad ayagaa samaystay waa reer Yurub kaliya iska lahaa oo markaa samaystay laakiin Mareykanka iyo maxayta Russia iyo Jarmalka waa diideen inay ku darsadaan wax gumaystayaashii Yurubka ayaa samaystay ayaa maamulahayay ayagaana samaystay dhagaysto reer Yurub ayagaa samaystay dhagaysto ayaa samaystay markaas magaceedana waxaa la oran jiray League of Nations waa ICJ-dan oo hadda leedahay maxkamadda caadilka ah adduunka maxkamadda caadilka ah meeshay ka soo askuntay dadka soo samaystay sida loo soo sameeyay waqtigii la soo sameeyay ayaa idin la qaybsanayaa dhagaysta waa dagaalkii koowaad ayaa ka bacdi baa la sameeyay ma gartay waxaa loo dhisay maxay tahay loo dhisay oo la oran jiray organization oo markaa loo yaqaanay organization oo loo yaqaanay League of Nations dhagaysta oo ay ka dambeysay oo maamulahayay gumaystayaashii reer Yurub waxaa maamulahayay gumaystayaashii reer Yurub Mareykanku ma jirin maxay ahayd Russia kuma jirin Jarmal waa diideen ka bacdi dagaalkii labaad markii la soo noqday ayaa maxay ahaydeen League of Nations ayaa markaas haddana waxaa ku soo darsoomay Mareykanka iyo Ingiriiska ku soo darsoomay in unit la wada noqdo markaas Mareykanka iyo Ingiriiska markaas ay samaysteen magacaan la yiraahdo maxay ahaydeen United Nations markaas waxay samaysteen magac la yiraahdo markaas magacii la dhahayo wuxuu ahaa maxay organization League of Nations waxa markaas waa dagaalkii koowaad wixii ka dambeeyay dagaalkii labaad markii laga soo noqday oo Mareykanka iyo Ingiriiska ay raali ku noqdeen inay haddana ku soo biiraan maxay ahaydeen League of Nations ayaa magacii loo bedelay si maaragtay magacii ay bedesheen alashaan waa unit complete marka waxay isugu baxeen markaas United Stations begartay United Nations begartay marka waxa weeye waa complete ayaga furtay markaasay magacii ICJ ay ahayd saasay ahayd hata waa United Nations ayaa iska leh ICJ ayaa furtay ICJ ma gartay waa dawladaha UN-ka oo iyo dawladaha Yurubiyaanka isku jiro waay yaa marka soo ansixiya nimankan maxaakimiinta si ay ku yimaadaan
nin kasta waddanuu ka socdaa nin wuxuu ka socdaa talyaaniga nin wuxuu ka socdaa ingiriiska nin wuxuu ka socdaa sweden nin walba waddanuu ka socdaa waddankoodii ayaa soo maxay haytay soo xushay nimankan ayaa soo xushay marka waxaa approver gareeyay UN-ka United Nationka ayaa approver gareeyay UN-ka ayaa approver gareeyay nimankan maahan xaakimiin ku soo takhasusay sharciga dhagaysta wadamadoodii nin walba waddankiisii ayaa soo xushay ayaa maxay hayteen soo saartay ayaa soo xushay ka bacdina waxaa loo soo gudbinayaa UN-ka waxaa approval garaynaya UN-ka nin walba waddankiisa ayuu interestkiisa ayuu maxay hayteen u fulinayaa ma garteen marka sidaasay maxkamadda ay ku furteen maxkamadda marka waxa weeye waa UN-ka ayaa iska leh United Nation ayaa iska leh maxkamadda ICJ dhagaysto si fiican annaga marka Soomaali haddaan nahay yaana xukuma yaa 30 sano nahay yaa waddankeeni burburiyay yaa maanta ciidamadaana dul fadhiya amisoonka noo keenay yaa xalano noo fadhiya yaa maxaytan African Union yaa noo keenay annaga maxayta Kenya inay annaga ka mid noqoto amisoonka inay nabadgelyadeena ilaaliso oo ogtihiin Kenya inay diyaarad nagu garaacayso inay Jubbaland loo saxiixay inay dadkeeni laynayso inay nalaynayso shacbiyadeen inay boobayso askartii amisoonka ahayd inay gabdhihii ku fuulahayaan yaa noo keenay waxaa noo keenay UN sharciga UN markaan leeyahay way ka tilaabsadeen way ku tunteen sharciga UN-ka waxa weeye sharciga UN-ka ma dhigayso dal occupation ku jira ee chapter 7 ku jira ee maxay tahay intaasoo ciidamo dul fadhiya oo adiga UN aad dalada u gooynaysid ee safiirado iyo tajiraad dalada gooynayaan ee qaramadii midoobay fadhiyaan waxaa mamnuuca oo sharci darro ah hantida dalkaas uu leeyahay nin saxiixi karaa ma jirto tuugada kursiga soo saarateen waa mamnuuc ma saxiixi karaan ilaa dalkaas ay madax bannaanaadaan ilaa dalkaas ay noqdaan dal madax bannaan oo ayaga iskood u istaaga markaasay waddankay rabaan kula dhiilgarayn karaan khayraadkooda laakiin dal la haysto oo UN haystaan oo United Nation haysato ee xukumto may garatay waxa weeye waa mamnuuc waxyaalaha maanta lagu dhaqmay in annaga badeeni 125 loo gooyo maxkamadda cadaaladda aad leedihiin ICJ cadaalad maaha حق وحبا وما سميني ما آمنسنين محكمة ما أهن ما تشرتو خلط دوينة هذا محكمة عدالة ICJ عدالة ما أهن حتى عدالة هاي يا نين أناga آمنسون نوغو فرديا oo dadkeeni diyaarad ku garaacaya oo annaga gabdhaheeni askartu amisom fuulaysa kufsanaysa gabdhihii Soomaaliyeed ee hadkii soo dhaaftay ee Jubbaland haysta Jubbaland la wareegay ee badeeni Soomaaliyeed nagu haysata ee kamid maxay teen la yiri waxa tahay presidentiga waxa tahay security council ba tahay in Africa kawar adduun ma ka dhicin marka ay leeyahay UN sharciga ku tuntay nin president laga dhigay oo loo hadana loo cusboonaysiiyay ilaa shalayta Mareykanku joogay Mareykanku ka qudbadeynayo Uhuru Mareykanku fadhiyay Mareykan muxuu fadhiyay Mareykan wuxuu u fadhiyay guushii u soo hoyay boobkii Soomaaliya oo la xukumay boqorkiiba 25 laba maxaytan ceel ee mid gaas ah iyo mid oyala oo xaq darro lagu ogolaaday oo loogu saxiixay ayuu u soo dhiciyay waa loo cusboonaysiiyay waxaa laga dhigay president security council in Africa daladi sheegay Soomaaliya ma garatay ayaa laga dhigay oo loo dilacsiiyay oo nakseerka June ayuu dhacayaa waqtigiisii marka nin asaga kamid ah maxay hayteen security council kamid ah ayaa maxkamadii security council kala hayd ICJ 2 times ka diiday inay maxkamadda timaado ku gacan seertay
oo tiri kuma aaminsani wax allaale waxay sheegaysay kuma aaminsani maxkamadaadana ma iimaanayay ayaana looga jaray 25% oo loo xukumay bal Soomaaliya ay arintaas ma xaqba mise waa xaq darro ma daacad ba maxkamadaas mise waa daacad darro mise way ee xatay oo maxkamadaas way nooga boobtay annaga hantideeni in nin asaga oo ku jira maxay hayteen US consularka Africa ku jira ee president loogu soo magacaabay inuu maxkamadii yiraahdo anigu kuma believe garaysi inuu maxkamadii u gooyo inuu ku yiraahdo waxa ka maxay hayteen aan shaqo kugu leeyahay ma jirto marka idin leeyahay way og yihiin marka idin leeyahay African African marka idin leeyahay Afrikaanka ragtiisiika riska ee Kenya marka leeyahay gadaashiisa waa la taagan yahay markuu diyaaradaha nagu xasuuqahayo markuu gabdhaheena kufsanahayo markuu Jubbaland wuxuu raba ka samaysanahayo markuu ceelasheena qodanahayo markuu tuugada la dhilgaraynahayo yaa ka dambeeya yaa soo diray yaa la og yaa arintaas u soo maxay ka soo dhaadhiciyay yaa yiri xoolahan yaa niyahow maxay nooga faa'iideey yaa soo diray waxa soo diray UN-ka waxa soo diray qaramada midoobay waxa soo diray United Nations soo diray ayaga soo diray ma garatay Security Council-ka soo diray asaga maxay ahayteen asaga ku caleema saaray inay ka dhigaan Security Council-ka Africa President ee loo cusboonaysiiyay taas ba xaqiiqa taas baana run ah taasaan aqli gala barkay John Biden Mareykan wuxuu ku jiraa UN-ka dhagayso wuxuu ku jiraa Security Council-ka oo aanan maxay ahayd permanentiga ah oo aanan isbedelin shanta Security Council ku jiraa Mareykan ma gartay shalayta markii loo cusboonaysiiyay again mar labaad minis waa abaalmarin waxa loogu abaalmarinayaa badeeni ayaa 25% loogu xukumay batroolkeeni iyo oilkii Soomaaliya lahayd ayaa loo xukumay ayuu u soo dhiciyay asagu waa shaqaale waa rimtisi karis barqiisa la siinaya khayraadkaas uu raba maxay teen wadankiisa inuu wax ugu qabto asaga raba xoolihii Soomaali ka baahneed inuu maal qabeen dalkiisa uga dhigo marka waxa la yiri xoolihii tuugadii Soomaaliyeed ee indhaha xirneed ee cawaanta ahayd ee gaajada ahayd ee shacabkii Soomaaliyeed oo baahan ku saxiixday ee maxkamadda geysay niyahow shaqo fiican baad qabatay mar labaadna waa ku caleema saaranay inaad noqotid President Security Council that's weeye awaris weeye Mareykan loogu yahay marka idin leeyahay wax kasto dalkeena ka dhaca dhibaatada dalkan ugu haysta waa Mareykan iyo dawladaha galbeedka ayaga weeye waxa sharciga UN ka leexday ayaga weeye waxa sharciga UN ku tuntay ayaga weeye waxa sharciga chapter 7 ku tuntay ayaga weeye waxa sharciga ku tuntay maxay occupation waa ayaga ha garta waxyaalahaas ka mid ah midda labaad Maxamed Farmaajo stupid weeye Soomaaliya run baan idin sheegaya wallaahi waa idinkaga ballan qaaday waan keenaya afraadku Mareykan iyo Canada ka galay ma garatay joornaalkana maxay hayteen New York Times waa lagu soo qoray ma garatay afraadku ka galay Mareykan ma garatay waa idin la qaybsanaya waxa iiga weyn dalkaygii hooyo khayraadkaygii hooyo dhulkaygii hooyo oo maanta uu gacantiisa ku bixinayo maanta uu gacantiisa ku baadhiyeenayo maanta uu gacantiisa ceel uga riday maanta uu aniga hantidii dalka Soomaaliya badii iyo khayraadkii uu aniga Kenya ugu faraxsan yahay uusan ka hadli karin uusan ka doodi karin uu raali uga yahay uu shacbiyadii been u sheegay uu leeyahay baadhiyeeya badii baa noo soo noqotay inta la siiyay 25% Kenya ayadoo maxkamadii diiday ayadoo tiri kuma aaminsani ICJ kuma aaminsani Security Council-arki asaga consulka uu asaga maxay ka mid aha oo asaga maxay